شديد الكيد بالإيجا إلا نجتني بالإيجا كالكبوك نيساي بالإيجا بريات الكوريسي بالإيجا بالإيجا يقول إحدى بالإيجا فروق ذا إله بالإيجا Iraha campuruk dari Paningga. Wahyu Daud. محمود فارح أحمد بلشاوي وحكم دي dadka ku nool deegaanka Calmud halkan waxa la yiraahdaa moon magacayga waxa la yiraahdo Sadex Maxamuud Faar Axmed Ali baa la yiraahdaa aanaysteedu waa bulshaale halkan waxa la yiraahdaa casho wali cashi lama gaarin waxa way qayb kamida halkan waxa la yiraahdaa meesha la yiraahdo waxaan ku rikaas baa la yiraahdaa moon bayna ka horeysa mirciye ragaad insha Allah bismillaahi kariim waa tagi doonaa cashi faano le fari kama qodna wali meenu gaarin dabku yuuna ka dhamaan insha Allah bismillaahi kariim dhulka quruxdiisa iyo waxa maxamed waa iska garan kartaa dalkan waa dalkii uduga gobolka Sanaag gaar ahaan waxaan ku yiri degmada Laasqoray baa halkan laga xukumaa waxaan ku iska garan kartaa geeldooreen ka soo baxnay eeshan waxa la yiraahdaa Calmud baa la yiraahdaa waa dalkii quruxda waa dalkii dahabka waa dalkii uduga waa dalkii waxaan ku yiraahdaa beeraha waxaan ku waad ka garan kartaa waa dalkii waxaan ku hidiye dhaqanka iyo geeli waad iska arki kartaa waxaan ku yiri maxamedow hadda koor waxaan ku hees baan ka tiriyay halkan heesta waxa la yiraahdaa Sanaag dhulka bilicdalo marayaan biyuhu dhulka bilicdalo marayaan biyuhu beeraha qurxoon rabbi beerayo bilicdii Sanaag ma ku soo bara aad baa u mahadsantahay abaar dhul bustaana oo biyo malab yihiin baariiska wacan beeri raaxada ma ku soo bara
barashadeeda taan ku bisilayay aad baa u mahadsantahay saaxiib waxaan dal dheer uga soo tagay oo mudug iyo gaalkacyo uga imid inaan bilicda iyo barwaaqada sanaag aan barto aan ku dalxiiso aan ku raaxaysto dadka aan garanayn oo aan arkayn oo aan aqoonna inaan waxa weeyaan u sheego oo tusiyo kuwii ilaahay nimcadaa siiyey ee ka taariibay ee ka tegey ee qurbaha ku silicsanna waxaan leeyahay war Ameerika tanaa ka fiican war Canada tanaa ka fiican war Yurub tanaa ka fiican war Paris iyo London tanaa ka fiican war Scandinavian tanaa ka fiican war waxa ilaahay ina siiyey baldaya bal biyaha shumaya daya bal beeraha daya bal barwaaqada daya bal geelay daya bal loodii daya bal nimcadii daya dhulkaana ilaahay ina siiyey ilaahay wuxuu ka dhigay dadka ugu qanisan dadka dhulkii ugu quruxda badnaa ugu barwaaqada badnaa bal fiiri roobka iyo dusha iyo barwaaqada waxa naga haysta bal fiiri doog iyo cagaarka bal fiiri biyaha iska durduraya bal fiiri nimcada ilaahay ina siiyey nimcada ilaahay ina siiyey inaynu ku shukrino inaynu ku noolaano waxa kaloo ay ina ka mudan tahay nimcadaana waa ay dayacan tahay dayaca inaynu ka saarno jidka aanu marayna siliciisa iyo rafaadkiisa waa arkaysaa waa inaynu jidka inagu dhisannaa waa inaynu xoolaheena ku dhisannaa waa inaynu halkudhigii ahaa wanbix aynu wadada dhisnee nin hal bixiya nin sac bixiya nin waxar bixiya nin orgi bixiya nin mooska u soo baxaya bixiya nin liinta u soo baxaya bixiya nin cambaha u soo baxay ugu soo go'aya bixiya nin walba waxa weeyaan waxa uu bixinayo waa inuu bixiyaa waa inaynu wadankan aynu ka dhignaa laami waa inaynu ka dhignaa goob dalxiis oo adduunku inuu ku yimaado oo loo soo tamashla tago oo barwaaqadiisa laynala wadaago innagu inaynu tahriibno waxa ka mudan innaga laynoo soo tahriibo oo guryahan korisii bal eegay gurigayga quruxda bal eegay barwaaqada ilaahay bal eegay guryahan quruxda le bal eegay quruxda le bal eegay riyadiyo fuuxan bal eegay riyo heer durturayay bal eegay بايدي نوشنا ما شاء الله صاحب برشا aad baa u mahadsantahay runtii tan waxay ahayd mid noo dhimaneed adduunyo waa sheekay shaahid sheekan ku arki jirnay hadda shaahid baan ku haynaa runtii ilaahay subxaanahu wa ta'ala meeshaan qofku ku beeray oo uu qayb u siiyay waxa weeye wax ka maqan lama arko waa janno adduun baan oran karaa wax kale oo ku tilmaami karo lama arko sanaag waa janno adduun waa jannadii Soomaaliya qofkii ilaahay sanaag siiyay waxa way shantiisa salaadood tukada bishiisa sooma afkiisa iyo adinkiisa laga nabad gala ilaahay abuurtay caabuda waxa weeyaan waa janno hadda ku nool yahay aakhirana jannadii ilaahay buu galayaa waa janno ku sug meeshan qofkii fursad u heli karaa inuu ku noolaado anigu haddeenan carruurtii iyo reerkii soo raro ayaan rabaa saaxiibka bulshaalow meeshii aan qol ka dhisan lahaa iyo beertii aan degi lahaa geedahaas miraha dabiiciga oo cambihii iyo dabiici ay liintii iyo dabiici ay ku yaalaan baaba ku filan babiil kalaba uma baahna ما شاء الله نمعنا waxay u baahan tahay in laga faa'iideysto dadkii dalkan wax u bartayo wixii aad ku barateen dadkan cashuurtoodii iyo waalidiintii idin dhashay waxay idinku koriyeen deyn weeye waa leedinku leeyahay deyntii baa leedinku sugayaa warbaxaas biyaha iska dhacaya iyo dhulka barwaaqada iyo beerahaas iyo nimcadaana lagu soo dhaweeyay wali fariiqan maqad nafaa noole waxaan idin soo gudbin doonaa hadii Allah awoodda ku ogolaado sanaag iyo biricdeeda iyo barwaaqadeeda waa goob dalxiis waa goob nolol raaxo leh waa goob nasasho waa goob indhaha u roon dadka halkan jooga indhuhuba kama dhacaan baa layiri greenkaas iyo cagaarkaas bay 24 saac ku jirayaan waxa weeye waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo wana lama huraani hadalii wax ugu qabo wana lama huraani hadalii wax ugu qabo waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo wana lama huraani hadalii wax ugu qabo wana lama huraani hadalii wax ugu qabo antigay macaan jeclahay dhaqashadiisii
iyo naftayda iyo qalbiga waan ku dheelyaaqayo sidii kubad aanan dhalay oo kale aan dhabu jelaystay darwaqada dhextaal iyo nimcada kuwaan ku dhuulay waxyaabaha aadka cajiibka u ah oo aad ku arki kardho deegaanada uu booqday mudane tigay waxaa ka mid ah bunka oo ay Soomaalidu caan ku tahay bismillaahir rahmaanir rahiim halkaan aad arkaysaan geedkan waa bunkii caadiga ahaa waa u jeedaa sida uu yahay waxa uu ku yaalaa buurta Calmadow miskafee uma baahnid kafee kalena uma baahnid waxa weeye waa dariic geed Ilaahay ka saaray meesha weey sidoo kale waxaa goobaha uu booqday mudane tigay aan kan marnayn qudaarta qaybaheeda kala duwan liin balbeelmada aad aragtaan ma ahan mid laga keenay beerihii ku yaalay gobolka Shabeellaha Hoose ee waa mid ka baxday deegaanada barwaaqadu ay taalo ee buuraha Calmadow ee gobolka Sanaag ma sha Allah waa sooriyadaydi 3 xabbo liin balbeelma ay ugu filan waxa weeye quraac iyo qada iyo cashaba iyada kuugu filan dhulkaan saad uma baahna sahay uma baahna waa Ilaahay dhul barwaaqad buurta daalo waa meelaha ugu dalxiiska badan ee la isugu yimaado dhalinyarada meel kasta looga yimaada halka kan qorigeena waa qoriga ugu badan ee sawirada lagu galo aragtaan tabartaas uu leeyahay wuxuu halis yahay inuu qof la dhaco hadii uu qofkaas dhaco waxa uu gali doonaa laagaas waqtigii baa dhacay waa la tagayaa maxaan aadaynaa maanta tuuladaas aan tagaynaa halkaas aan soconaa hadii ay nabad nagu yeelo magaciisa waxa magaalada Badarmugi inta xal dhaafay هاي ورد ما ذي وياه مع السلامة هيقول سو دحين با دغخا لا يرالا هيقول سو دحين يا دغخا واقي ما كو غلط كيف هتو سو يرالا في غير بساو تاغي xarigan aan hayo waa xarig isku xiran laba tuulo oo adeega loo kala gudbiyo raar balag waa halka iga hooseysa iyo ragaad oo meel sare ah xarigan laguma xiro bini aadan laakiin sahayda kale oo dhan ayaa lagu kala gudbiyaa iyadoo markaas miisaanka la ilaalinayo uu qaadi karo ka ah laba tuulo ragaad tuulo la yiraahdo iyo raar balag isagoo uu kala adeega meesha gaarigu dhigo raashinka
reerka hoosena loogu xiro ugu yaraan 50 kiilo marka waxa weeye biyahaasina waa sida oo kale 26 baac bay aroorayaan oo jarka ka digayaan reer balag waa meel iga hooseysa oo 26 baac iga hooseysa aniga أنا waxaan joogaa jarkii rayaadood ma aha inaan dhiiri gelinayo laakiin waa xaqiiq qaadka Soomaaliya ay soo galiso Kenya iyo Ethiopia inuu dalka ka baxo halkan waa mirci oo ku taal Calmadow kana tirsan degmada Laasqoray ee gobolka Sanaag waxaa jira beero gaaraya 80 oo uu ku yaalo qaadka noocana dadka deegaanka ayaa nooga warramay arrintan waxaanu beernaa qaadkaas oo heerari ah oo wadani ah weeye oo haddii wado loo helo ku filan Soomaaliya oo dhan dhammaanteed oo la hagaajiyo oo la tayeeyo laakiin dawlad la'aan bay haydo annagu baan iskala tabci jirnay ragga beeraha jaadka halka kule waxa ay aaminsan yihiin haddii ay jid heli lahaayeen inay dhaqaale ka samayn lahaayeen jaadka halka ka baxa waxaan idin sheegaynaa haddii qaadadkani ay heli lahaayeen fursadahooda iyo dhaqaalahooda iyo wadooyinkooda inaan qaadka Kenya iyo Ethiopia keento dhaqaalaha Soomaaliyeed u baxeen 15 qof oo aan wareysanay intaan joognay halka waxa ay ka siman yihiin hal mid oo ah caqabadu inay tahay wadada xaamilooyinka iyo umuluhuba waa ku dhibaataysan yihiin tii xanuunsato oo uur leh gaari lagu qaado lama helo wadana ma jirto xabad kiniin oo la siiyo male xabad dhiig joojina male xabad dawaa male tan umulaysaa waa la mid tii ugu dambeysay kal hore way ku dhimatay waa dhiig baxday way dhimatay qabriga la geeyay waanu geynay xasan xirsi axmed waxa uu noo sheegay in duruufta dadka halka ku nool ay bartay duruuso kale oo khatar keeni kara qofka anagu halka aanu daawada ka dhigano dab baanu saarnaa xolo dab ah qofku markuu xanuunsan ilka ka xanuunsado dab baanu qaadnaa xanuugeena bahal iska weynaada maxaara ama toorri baan ka saarnaa ruuxa markuu uu mulaayo wax kale goortaan garan weynay sidii sawaayada horeeto baan xidid u soo qodnaa dhir baan xidid uga soo qodnaa wala bargeedkan ku eega calaashada geedku inuu dilo Allahu a'lam waxyaaba aan ku noolahay waxyaabaha marin xumaanta deegaankan ka jirta waxa ay caqabad ku noqotay noloshii kale ee dadka inta aan horumar la gaarin halkani ma leh meelo ubadku wax ku bartaan waa tan Xaliimo Cabdi Axmed oo ka mid ah waalidka halka degan caruurtu ma haysato aqoon diini iyo maadiyan midnaba ma haysato goob caafimaad oo lagu daweeyo waad ogtay caruurtu iska xanuun badan tahay shuban baa ku dhaca xanuuna kala ku dhaca meel ama irbad laga dhifto ama kiniin ay ka helaan midna ma laha waa meesha duurka ah oo hayjada ah Calmadow waa dhul taaga waxa dadku si joogto ah u dhageysanayaan warbaahinta Daljir FM-ta Boosaaso Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh aruriyo suuban meel baa joogtaan isla walba noo dhageysanaysaan saaxiibayaal ku soo dhawaada kuna soo dorka barnaamijka muuqaalka bulshada oo si toos ah maanta idinkaga imanaya xarunta محمد حسن دلو warbaahinta Daljir Calmadow adoon mare gudayaa diin marar ku gaadhaye dalkeena waa xuquuqumuudan ceeri shaabuguna magdheere wamaa khirkoodkii la dhegay maran la sugayne rabbii dadkii hore dhigiyo madhixiida yalle mandarkiyo jamalkaad lamnaan ugu maalaysaye manaaqiyo hawada waxay ka tahay mawdarta ciraaqe araweelo meeshay degtiyo mulugi gelweyse iyo waxaa maasiir ku jira mofki la halaye manlaa iyo talooyintaas aqala modayso medili kesiga lagu qarshay bay manka bootaaye maduuniyo godgoorana ninkii marayba yaabaye mageerka waa ka daryale magala arkaye dhammaanme shalay degi jireen magaca Soomaali mandarka ciise celaye waa ka masaarkaye kirsabiire maarinkii didgaxbuu meel ku leeyahaye jidari maqamkiisu dheer baa u moosinaaye muftacii karaamada kuwii midigta loo saray muftigii isxaaq baa degiyo mudankii darode
وميل ملكا وديو برمضوغ عليه مرمر ويداق حوذيو نردوني يهيم يابو حايلي ضحاياي مدكا برماني مركب مراحة سورودي تكيو لشوق تاغن بابا وحا مرايو دنبا كمرا يغاي مرفعا وباردا وحوص وباكم المعصفودي إلا تريد ملودغو مهما وياني منتاسا مرسي يوطاوا لغو مرداماي ما يدا كفا دوريتاي مريغا جيرالي ضرورتو من جا دوركتيو وغيرا ميغا داتي دمو كدي يوطو يهاي مرسو تيراني ترتاغار بني دبني يوماني يورادي نوريد لابو بابي يادو قامو داي ينارو سيراتو غشيو مولدي مليغا مسكبا كورا كينتا يوم ملكا جداي شنديرا مختلف كوعي عين ديبا هستاتو ومداب كاكارقوني عدد مليون قالا موقيو سياحة دربيو معلين نداي وليكم على ثالثيو مرضى باباني ورتو قدوان ومردو يدوني ميرانايو او قمريدو صوت معان الفكارة يدو وقروب ميوسيقا سودو قلوكم اولكو ومريسكو كوسو ورانو مشوا حسوبا أدرام ديسي صيو مغشو باوشا أبيجيو نفتا مرمان دوني ميلكالي ديب مرأي مطانا دوسوغا مرين تقود كذا مرارا لدناسيو شنور مضابك يا بوسي منكا أباحدي بوغيشي ندومي بكابوركو يلي يوجد قاوشا يو موري يو حيسكا نبادا يو بوغالي غيو شويدا ميليدا مغاريغا عميسا داديريو وغيركا مهايا محوركا وبان لغا قرسيو ميتيجيو فوح محوركا وبان لغا قرسيو ميتيجيو فوحا ارتعملي حوادا يلتو مالكو كوا بابو مضاهبي لديدو سورتان مدبكو سورتونين انت سوما فعلا سيرتو ولا مبيعي مباريو مرسيو الله يدماليو بان معاملو مباريو مرسيو الله يدماليو بان معاملو نيسار تبوريغا الكيمي لرديغي صالي وحينين ديسيادو صوتران ريغي مالييني وميرو عادا الطيق الكامة ضيين قاري حتى سانتا نوتي سوا ما بيراي من شاء اللي وحودا ماي ومدودا hadda calmadow waa tana calmadow waxaan ku dhex jirnaa hoos halkaasi waa boholo waaweynaaday waa roob waa ceryaamo waxaa loo socdaa meel hoose oo aan cunto ka soo cunayno oo lagu martiqaaday dhulkan aad iyo aad ayuu qurux badan yahay yah hoos waan u soconnaa hadda kor baa ka nimi waa rabbaani ilaahay baa saa u qurxiyey calmadow hadda waxaan joognaa calmadow bilowgeedii baa la yiri waa afka laga galo calmadow ayaan maraynaa quruxdaas halkaan reeraa degi jiray sababtoo ah saaladii looda iyo geela aan aragnaa dhulku waa kaas ofa green waa wada cagaar dhulkaas saako dhan burf baan hayay iyo qabow muun baa joognaa muun meel la yiraahdo waa weli waxaa ku jirnaa laas qoray inta u dhaxaysa baran iyo laas qoray ayaan ku jirnaa waa tanaa waxaa isla soconaa ani iyo tigay maxamed yuusuf jaamac tigay alla dhulku qurux badanaa oo haddana kala sareeyaa martiqaadka dadka maaragtay reer miyiga ama guraaga ku fiican
saaka waxaan lagu marti qaaday dhulkan oofa gariimka ah afkayga waxa ka baxay qiic sidii inaan sigaar cadno kale salaamu calaykum fiican tahay maasha allah ayeeyo dhulku qurux badanaa reerkaan aan maanta nacasbay dharanadhan waa kanaa gurigii halkaana la degan yahay roob ayaa iska da'aya quruxdaas بسم الله الرحمن الرحيم كل كان ينم على سائل هاي نسيه وحين كم مقال لما أركو يوروب وحماوي أمريكا وحماوي كندا وحماوي عرب وحماوي آسيا وحماوي وحاضن وحكي عن بيلا هاي سيه برواقدا صار لا هاي برواقدا سبحان الله هدي أنا نقول كيجو نقصكوا أمال بدل صومالي كما ضلنا هدي أنا نقول كيجو يقعد وكبشر صومالي كما ضلنا dhulkaan wuxuu rabaa inaan cadowga ka dhicino cadowga ku soo hunguriyeen sida ay awoowayaasheen iyo abayaasheen Axmed Gurey iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo dadkii la midka ahaa iyo intii SYL iyo intii Salaadiin iyo Boqorreyno ahaa sida ay uga celiyeen cadowga inaynu cadowga uga celino waxa weeye inaynu u abaal gudnaano waa inaynu nimcadiisa la soo baxno waa inaynu khayraadkiisa ka faa'iideysano waa inaynu beerihiisa falanaa waa inaynu badiisa cadowga ka ceshanaa cadowga u soo dhardhigtay inuu khayraadkeennii badda boobo inuu dhulkeennii baarto inuu waxa weeye khayraadkiisa kala وإننا نكون هرتنا والله إلهي برواقدا أي نمعدا أي نسيء إننا نكون شكرنا إننا نمعدا ناس كفاية يسنا إننا بيها ونلشة بيها هلكا كذا عي قروح ضادا إننا نكون الحسنة إننا نكون نصنا إننا نكون علانه إننا نكون راح يسنا دلالك أدونك وحر رغالها وقبضا كسر جلاد الحيسك تذكر حيلاقيين مالي كذا الحسان تذكر الصومالية وحلانا إننا كسر الحسان ويمادان dadka ajnabigaana waa iman karaan waa lagu soo dhaweynaya dadkaana waa dad nabadgelyo dhulkaanuna wuxuu u baahan yahay in laga shaqeeyo dadkiisii wax u bartay ee aqoonta lahaa wuxuu u dirayaa fariin wuxuu leeyahay war maxaad ii nacdeen war maxaad igu doorsateen war maxaad iiga tagteen war maxaad iigu soo noqon weydeen war maxaad ii camiri weydeen war maxaad ii dhisi weydeen war maxaad nimcooyinkayga uga faa'iidaysan weydeen war ma waanan dad lahayn ayuu leeyahay war dulkeena aynu ku soo noqono war aynu ku noolaano war aynu nimcadiisa ka faa'iidaysano war qani baynu nahay innaga adduunku inoo baahan yahay adduunka uma baahnin gaajo iyo innaga ilaahay waa ina kala dheereeyey halkaasuu ina ku abuuray dhulkaas iyo nimcadaasuu ilaahay ina siiyey war nimcada aynu ka faa'iidaysano aynu ku barwaaqowno aynu ku noolaano iyadana aynu wax ka qabanno dadka sidii loo horumarin lahaa adeegyada asaasiga loo soo gaarsiin lahaa caafimaadkii waxbarashadii isgaarsiintii wax walba beeraha halkan ku yaala waxaan naloo sheegay liintu inay geedka jabiso mirihu inay jabiyaan cambuhu inuu jabiyo markii wax ka guran la waayo sababtoo waddo loo soo maraya lama arko in waddooyinka la dhiso waddadana waxaynu ku dhisi karnaa waa xoolaheenna iyo xooggeenna iyo aqoonteenna aynu isu geynay dalkeenna innagaa iskale haddaynaan innagu dhisan cid inoo dhisaysa lama arko bilaahi calaykum bal barwaaqadaas iyo nimcadaas iyo fiiriyo quruxdaas aynu ka faa'iidaysanno aynu ku noolaanno aynu nimcadaas waxa weeyaan ka faa'iidaysanno maasha allah dhulkan yaa iskale haddii la isweydiiyo waa su'aal da'weyn dadkii lahaa meeye maxay uga faa'iidaysan waayeen dhulkan waa ooyayaa wuxuu leeyahay war maxaa dad la'aantay dhigay war dhulkeenna aynu ku soo noqonno kii ka maqanow dhalanteed iyo dhul shisheeye iska daa dhul shisheeye dheef ma leh habeen dhixitin mooye guri ninkii lahaa quruxsaday cayr inaad ka qaadatid laguguma talagelin ilaahay waxaasoo nimcaha buu ku siiyey